سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت بدن عافيماد قبان دي رجينا يا ينول القروح بدن قرال كان وحدين على فيسبوك منسنجر كي نوغا صودرين نندل يرى ووقت يدا كميدا أينو تلاسيني أيا فيدباق نوغو سوعليين واتاينو دونينو أما مانتاينو وداغينو بالقرال كيسا أيانو أرخينا كدبنا wixii faalla ayaynu ka taaban doonaa. marka koowaad uu ina salaamayaa salaanta islaamka ayuu inagu salaamayaa waynu ka qaadaynaa. wuxuu yidhi allah ha idin wanaajiyo waa ii weynaaday xubinkaygii taranka ee aan cuqdada ka qaaday ee aafadu yaraysay. wuxuu ahaa buu yidhi xilligaas 9 sentimitir ayuu xubinkayga taranku marayay buu yidhi, imikana waa 13 sentimitir ayuu ii marayaa buu yidhi. muddo 7 bilooda ayaan waday buu yidhi masaajkii, xulbadii, basashii caddayd oo aan cabitaan ka samaysto ayaan isku waday buu yidhi. masaaj aynu tilmaamnay ayuu wado xubinkiisa taranka ayuu muddo 7 bilooda uu masaajka ku waday. waxa kaloo qaadan jiray cabitaan inuu ka samaysto xulbadda. waxa kaloo isticmaali jiray basashii caddayn inuu iyadana sidoo kale cabitaan ka samaysto. wuxuu yidhi 3 sano anaan samayn ayaan bilaabay buu yidhi taladii caafimaad ee ay siiseen. muddo 3 sano anigaan samayn aafadii foosha xumayd ama ficilkii sigaysiga ahaa ee gacan ku raaxaysiga. muddo 3 sano anigaan samayn ayaan sameeyey buu yidhi taladiina atala ay siiseen. kadib markaasaan taladii sidii ay ahayd aan u qaatay buu yidhi. wuxuu tilmaamayaa walaalkani allah ha idin dhowra buu yidhi ama allah ha idin xifdiyo, aad baan u fiicanahay, waxaanan iminka rajaynayaa buu yidhi ama yididiila rajo guur ayaa soo gashay buu tilmaamayaa qoraalkiisa. haddaba maxaa u saamaxay ninkani inuu gaadho guushan, isbeddelkan iyo inuu farxaddan inala qaybsado? waxaynu tilmaami karnaa inay 3 arrimood ay u saamaxeen. dabcan marka aynu qoraal soo dhigayno ku saabsan arrimaha caafimaadka, la talinta arrimaha bulshada guud ahaan gaar ahaan ragga, waxaynu markasta ku adkaynaa inaanu procedure-ku aanu ka lumin. qaabka process-ka loo samaynayo ama markaas recommendation-ka la bixinayo inaanay miskarayn oo aanay qaldamin ayaynu aad ugu adkaynaa. shay markaad isticmaalayso composition buu ka samaysan yahay ama markaa home remade-ka xilliga aad samaynayso waxaa loo baahan yahay inaad waxa isku dardaraysaa si sax ah yihiin, muddo kugu filanna inaad qaadato, xilliga lagu yidhi bilowna inaad bilowdo. markaasaynu heli karnaa natiijo aynu ku faraxno, markaasaynu heli karnaa tacabkeenna inaynu ayno, markaasaynu heli karnaa waxaynu soo bandhigi karno oo bulshada aynu la wadaagi karno. haddaba ninkan 3 arrimood ee u saamaxay. marka koowaad, masaaj waxay xubinkaaga taranka ka bedelaysaa ma jirto ilaa aad joojiso aafada foosha xun ee dhaqan, akhlaaq iyo diin intaba ka soo horjeeda. sidoo kale muddo markaad joojiso hakad baa jidhkaagu galayaa. waa inaad sugtaa ilaa inta jidhku si dabeeciya uu isku saxayo. muddo sanada ama dhowr bilooda waa inaad sugtaa intaana masaajka aana samayn. muddadaa kadib ninkani waxa uu sugayay aafada wuxuu joojiyay 3 sano ka hor. kadib isagoo jidhkiisiiba soo buuxsamay oo jidhkiisii dhisan yahay oo jidhkiisii isgaadhay ayaa waxa uu bilaabay masaajka. waxa uu bilaabay isnafaqaynta cuntada u fiican raganimada iyo hormoonada dhinaca taranka ee ragga. way ka mid tahay xulbadda, way ka mid tahay basasha cadi ayuu isticmaalay. markaas ayaa waxa uu helay natiijadan aadka u quruxda badan ee farxad gelisay. haddaba haddii aad doonayso in xubinkaagu uu kuu koro, kaysa biyahaaga muddo kabacdi markaad joojiso aafada foosha xun. waa haddii aad ku dhacday dadka ku dhacay ee doonaya xubinkooda inay koriyaan weeye. qofka kale ee isagu aan aafada samayn anytime kasta oo uu samayn karaa way u furan tahay inuu wadadan iyo wadiiqadan raaco. guul, farxad iyo horumar iyo qanaaciyada ayaan idiin soo rajaynayaa dhammaantiin. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa muuqaalkii koobnaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.